si aad jirkaaga dabad uga badbaadiso ducadaada in la aqbalay u noqoto adduunyadan in cadow lagugu sallida aad uga badbaado xaaraantii iska daabaa lagu yidhi saa darteed xaaraan in laga shaqaysto xoolo badan la ururiyaay wax yaroo xalaala ka roon waxaa layna baray suuqa barako ma rabtaa run iyo daacad wey balaayo ma rabtaa musuq maasuq iyo wax isdabamaris wey albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wabayana buurika fii baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima beec bilaa baraka weeye been iyo musuq maasuq wax isu qarin hadday sameeyaan wuxuu nabigu gaarsiiyey inuu suuqa soo maray maalin roob daay nin raashin meeshan u waran yahay oo miisayoole yaa iibsadayda ku haya buu soo maray oo gacantuu geliyey gudaha mid qoyan buu ugu tegey wuxuu yidhi waxaan waa maxay markaasuu roobka yaraa ee da-ayey baa kor kaga daayay wuxuu yidhi maa kor soo marisa dadku ha arkee man hasha falaysa mina ninka saa wax isu dabamariyaan naga midba maaha haddaan muslimiintaan nahay naga midba maaha ninka saa wax isu dabamariya dadka saa u khayaana man hashanaa falaysa mina naga mid maaha imisaan khayaanaa waad umalayn suuqeenna hadda dharkaan gadna waa feeg electronigaan gadna waa feeg dukumentiyadaan gadna waa feeg daawadaan gadna waa feeg ka soco raashinka la gada waa feeg qayb badan oo ka mid oo dhacay waxa waa ka shaqaysanaa saas uma nihin markaasaan leenahay ducada ilaahay muu aqbalo balaayadan baa nalaga daayo xooluhun bay barakoobaan ubad barakaysan bay ku soo koraan baan leenahay wax yar oo barakaysan oo xalaala haddaad hesho ka fiican qul laa yastawi alkhabiisu waalayibu walow acjabaka kahratu alkhabiis wayuxillu lahum alayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaa'is waxaa xunka ee xaaraamta ah taasi waa qaybtaas qaybta kale waxaa laynaga xarintinimeeyey si loo badbaadiyo xoolaha dadka inaad ku xadgudubto waa xaaraam cuquubana way leedahay cuquubana qofkii xada qofkii dhaca qofkii booba in laga gudo in la ciqaabo qaar gacan la gooyay leedahay xoolaha dadka ilaa uu nabigu gaarsiiy sallam say u kala khatar badan yihiin ee xooluhu kala cimri dheer yihiin bay u kala cadaab badan yihiin xoolaha dadka ay kugu khaldamaayay say u kala cimri dheer yihiin bay u kala cadaab badan yihiin dhulba ugu cimri dheer inta kale way baaba'an nabigu wuxuu yihi taa ka dhula qofkii qof ka qaata xaqdarro toddobadan dhul baa qiyaamada qoorta loo gelin oo la soco la dhih toddobada dhul baa qoorta loo wada gelin wixii kaloo dhan waa ka yara ogow way cimri dheer waa dhulkani kii nebi aadan ogaabaa yaalla khayr haddaad ku samaysana khayrka cimrigiisu wuu dheeraan ogow anu intaan arkay waqafka ugu cimri dheer muslimiinta 1400 iyo waxoogay sano jiraa weli ma maqasheen waqafkii Cusmaan ibn Cafaan guri weyn oo daaro hadda dhismaheedu socdo oo waqafkii Cusmaan ibn Cafaan la yiraahdaa jirta Cusmaan radiyallahu anhu ardaahu meel ceel iyo beer ahay timir lahayd buu gaday muslimiintu ku waqfay ilaa hadda timirtii way jirtaa waa sidii lacagtii dadku ku waqfay masaakiinta ahaa wax laga siin jiray waxna waa la dhigaa akoon baa lagu ururin jiray wixii lagu ururinayay baa guri daara laga dhisay hadda daarta hadda la dhisay Cusmaan ibn Cafaan baa dhisay ninna intaas u socota oo dhul ah midna toddoba dhul baa qoorta loo gelinayaa marna waxaa lagu jeclaysiinayaa dhulkii nadiif iyo xalaal inaad ku hesho marna waxaa lagaaga digayaa dhulkii xaraan iyo khalad inaad ku qaadato intaasoo dhan waxaa la ilaalinayaa mar xoolahaagu xalaal inay noqdaan baa la ilaalinayaa waxaa laga hortagayaa xaraam inay soo gasho mar waxaa la ilaalinayaa xoolihii dadka kale oo inaad ku xadgudubtood xaqdarro ku qaadato xoolahoodii banaysataa lagaa ilaalinayaa mar waxaa lagaa ilaalinayaa suuqii inaad fasaadiso ood ganacsigii iyo iibsigii iyo suuqii isdabamarin iyo khiyaano iyo musuq maasuq ummaddii aad u horseeddo ama aad qayb ka noqotaa lagaa ilaalinayaa oo suuqa iyo danta guud baa la ilaalinayaa intaasoo dhan waxa loo danaynayo waa innaga inaan khayrna helno shar iyo balana ka badbaadno ciddii shirki iyo wax wadda dadka ha laga qabto
ha loo diido ha laga mamnuuco intaasoo dhan diintii ha la fidiyo ciddii diidda diinta in la fidiyana ha lala dagaalamo wayakuuna addiinu lilah xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulluhu lilah ayadda kale intaas qofkii diida ee sidaa isagoo ku dagaalamay yidhaahda dadkan ilaahay inay caabudaan sidii loo abuurayna ahaadaan dagaal baan ka xigaa ninka yidhaahda ee lala dagaalamay ee dagaalkaa lagu soo qabtay muxuu ku fiican yahay in addoon laga dhigu ku fiican yahay intii ilaahay rumaysnayd ee addoonnimada ilaahay ogolayd isna uu kala dagaalamayey isaga addoon in laga dhigu mudan yahay oo la yidhaahdo kuwan aad ka sii hoosaysaa soo ilaahay maada diidin haa dadkii diidanaa baan u diidanayso maada dagaalamin soo gacanna laguguma soo dhigin intii ilaahay addoonnimadiisa qirsanayd baad adna addoon lagaaga dhigi halkaa in la geeyey ninka waa istahishaa si ay dadka inta kalena uga cabsadaan intaasi aan kaga baxo jus-iyaad kooban oo qaybtii caqiidada ahayd qaybta mucaamalaadka si guud buu nabigu inoo faray sal ly slam intaa aan sheegnay xalaashii xaaraamta in la ysbaro cuquubaday leedahay in la ysu sheego wasaa'ilkii xaaraamta gaadhsiinaya la xaaraantinimeeyo intaba way la wadaagaan laakiin laba xadiid aan horraysiiyo xadiidka nucmaan ibnu bashiir ee saxiixaanka wuxuu ahaa mudayse maanta nucmaan ibnu bashiir baan maqlayay radi allahu canhu wa ardaa wuxuu yidhi alxalaalu bayinun waalxaraamu bayinun xalaashu way caddahay waana idiin fasaxantahay xaaraantu way caddahay waxay ka dhigan tahay waana mamnuuc lama ogola wa baynahumaa umuurun mushtabihaatu labadooda waxaa u dhaxeeya meel aan la kala garanayninoo halaqya galeen iyo bahalla daaqeena u dhaxeeya meel halaqiya masaskuna ay geli karaan waraabihii iyo libaax iyo bahalladuna ay daaqaan baa u dhaxaysa laa yaclamuhunna kaiiru min annaas dadka intooda badan ma garan karaan ma tanay raacsan tahay mise tanay raacsan tahay maxaa lagaa rabaa adiga marka xaaraan cad iyada uma dhowaan maysid laakiin mid mugdi ku jiro madmadowle baa jirta faman ittaqa shubuhaati faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi taa madmadow qofkii isaga dheeraadaay diintiisi iyo sharaftiisu way badbaadeen waman waqaca fi shubuhaati taa madmadowga qofkii ku dhacee fududaystee la qabsada samaynteedana waqaca fi lxaraami ta kalena wuu ku dhici tanay ku gaadhsiin tusaalaa layna siiye marka ka raaci yarca xawla alximaa dhul xiranoo mamnuucaa jira xoolaha in la geliyo ninbaa xoolo raaca oo duunuu ku wareejiyaa kaasuu ku ag raacaa kama fogaado xoolihii aad raacday geel baad raacday adhi baad raacday loo baad raacday waxaad ku wareejinaysaa meeshii mamnuuc ahayd oodeedaad xagg iyo xagga ka daajinaysaa kula wareegaysanaysaa yuushiku an yaqaca fiihi an yartaca fiihi riwaayad qaarkood wuxuu qarka u saaran yahay inay xoolahaasi meeshaa galaande awr ka tallaabsada iyo adhi dusamidu noqdaba adiguna haddaad xaaraanta ag wareegto dalaqun baad dhihi haddaad tidhahdona ma qayilo laakiin qolyaha qayilaan iskala haasaawaay oon la fadhiistaa maalinka dambe adoo laanta qaniinayn baa sarka haddii aad tidhaahdo anugu khamriga ma cabo laakiin meeshaa baarkee lagu cabbaa fadhi fiican oon sheekadeeda jeclahayoo qolyaha cabbayaan iskala sheekaystaa maalinka dambe waadun kaban haddaad tidhahdo aniga tuug miihi laakiin tuugtaan saaxiibba la ahayoo sheekooyinkoodaan iska jeclahay maalinka dambe de wixii lasoo cunay alxaday baad la cabbi ood la cuni soo maha darisba diintiibuu kuu yeelaa bay idhaahdeen saas darteed baa waxaa la leeyahay haddii aad mugdigii dhex dabaalato fudaydsato ka kaluu kuu tallaabin marka maxaa lagaa rabaa meesha madmadow ka fogow si ay u noqoto xad idiin dhaxaysa adiga midii caddayd walidaalika xadiidkan iyo xadiid kale xadiidka ibni cumar ee kalea wuxuu ahaa alxalaalu bayinun waalxaraamu bayinun fadac maa yariibuka ilaa maa laa yariibu xalaal iyo xaraam way kala caddahaye waxaad ka shakido isaga tag oo waxaadan shaki kaa gelayninoood hubto samee waxda xalaalnimadiisa hubto cun maxaasaa laynoo leeyahay waxaa in badan laynoo sheegay xaaraantu khatartay leedahay waxaa layna baray xoolo xaaraan oo laga shaqaystay inta musiibe adduunye iyo aakhare ay leeyihiin
nafta saxda ah ee caafimaad qabtay aakhariya adduun wax isku falaysa way ka fogaan mid galabtaan sheegnay oo waxaa la yidhi xoolahaas xaaraanta ah sicir bararna way keenaan abaarana way keenaan madax dhacdana way soo jiitaan walam yanqusu lmikyaala waalmiisaan ilaa ukhiduu bisiniina wa shiddata almu'anati wa jawra sulطaani calayhim saddex baa iman markii suuqa musuq maasuqu bato taa waa adduunka saddexdaas aakhare maxaa ku dheer weylu lilmutafifiina ku dheer alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiinna way kuu dheertahay waxaa kaloo layna baray dhibta ay leedahay xoolaha iyo xaaraantaa la cunaay in adduunyadan ubadkiiyo dadku ay fasaadaan xoolaha aan barakaysnayn waxaa layna baray in cuquubo iyo masaa'ib adduunye ka dhashaan haddii siyaabaha qaarkood ku yimaadaanna gacangoyn iyo xatooyo si xoolaha dadka kale loo ilaaliyo baa layna baray nafteennii waxaa laga cayrinayaa cadaabka aakhare soo ma aha ducada horta adduunka lagaaba aqbali maayo weligaaba sujuudsanow kacbada tagoo isku xoqo harmaryaheeda qabqabso saqda dhexa soo kac xaaraan cun haddaad tahay ilaahay aad la bari lagaaba aqbali maayo maxaa ka xun qof muslina oo intaa alla baryo on laga aqbalaynin ilaa uu ka toobad keena xaaraamta tabcan uma dakara arajula yutiilu safara ashcatha akbar yamuddu yadayhi ila asamaa'i yaa rabbu yaa rabb wamطcamuhu xaraamun wamashrabuhu xaraamun wamalbasuhu xaraamun wagudiya bilxaraami faana yustajaabu lah qof maanta o dhan baryootamaya oo safar ah oo basaasan sidii ilaahay gacmaha kor u taagaya sidii ilaahay duco ku aqbali lahaa waa yahay laakiin waxaa diiday xaaraan buu cunaa wuxuu cunaa xaaraana dharkuu xihan yahay xaaraana wuxuu cabbaa xaaraama wuxuu nafaqa iyo quudba u abaa xaaraama ka ilaahay sideebaaba alla bari looga aqbalayaa weli nabiga sal slam leh marka ducadan aad baryaysoo dhan haddaad xaaraan soo cuntay xaaraan ku dhex jirto maba laga aqbalayo maxay isu daalin ducadii iyo alla barigii in laga aqbalo ilaahay u dembi dhaaf ilaahu reer ii barakee ilaahu dhib iga qaad ilaahu kan i samee aan towbad ahayn maba laga aqbalay walidaalika xadiid axmed wariyey baa wuxuu ahaa in nabiga nin weydiiyey saxaabada waxaan rabaa ilaahay ducadeyda inuu aqbalo markaasuu yidhi atim maطcamak takun mujaaba dacwa xalaal cun waa laga aqbalayaa xalaal cun ilahay alla bariga uu ka aqbalayaa qof muslimoo kasta waxaan jecel lahay ducada in la aqbalo laakiin in la aqbali waayo xaaraan baa keenta saaad uga hortagto inaan ducada lagaa aqbalin oo lagugu soo diida saaad uga hortagto xaaraanta iska daabaa lagu yidhi aakhare sow ma aha ayumaa laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa bih jirkaaga nafaqo kasta oo ku gashay xaaraan naar baa lagaaga goynayaa baa layidhi kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayrahaa liyaduuqu lcadaab jirkan markuu gubta naarta mid kaloo cusub baa la samayn si aad xanuunka u dareento oo cadaabka loo dhadhamiyo